السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز السود واضح آدي هذا ومهتنتهين مقال كم حرب إن ندخل وذاقه أرميه ترافل بانك هورت اللي شلي جمعه إن ودقن قاله ولما وسن دقن قلين لكن مامل كترام وحي ولسي وضان ودك جوده سئن أي دد نقاب فيزا كجوجي أي كوكب قبطان dad baasaboorro Yurub haysta oo ama dalxiis ku yimid ama ba shirar u imaanayay ama shaqo u imaanayay ayaaba la xirayba oo baasaboorro Yurub qaarkood wata kadibna qaarkoodna wadanka waa laga celiyay kuwana maalmo markay xirnaayeen kadib ayaa la sii daayay oo wadanka ay ka baxeen arimahaasi ayaan rabaa inaan idin la wadaago jaamacadda Columbia University oo ogolaatay dalabkii aqalka cad ay ka dalbadeen muxuu yahay dalabkaasi sidoo kalena professor kale oo isaguna jaamacad dhigayay oo la xiray laguna eedeynayo in uu urur argagixis xiriir la leeyahay garsoorihii maamulka Trump ku eedeeyay in diyaaradihii sabtidii la soo dhaafay wadanka El Salvador la geeyay wali ka dalbanaya jawaabo garsoorahaasi oo aqalka cad iyo waliba dawladdu wali jawaabo sax ah ay siin la yihiin isla markaana wali ay isku dhagan yihiin senator ka tirsan gobolka Minnesota senataradooda oo la xiray sabab la xiriira isagoo gabar aan qaan gaarin shukaansanaya la arkay oo ballansanaya kadibna waa uu iscasiray dacwada federaal ah ayaa lagu soo oogay arintaasina waan idin la wadaagaya iyo maamulka Trump oo sheegay inay dib uga laabanayaan TPS ama temporary protected status kii ay haysteen in ka badan 500,000 qof oo ka yimid wadamada Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela sidoo kalena arintaasi waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waxaanba dadka Soomaaliyeed waan u digayay kuwa doonaya inay hadda wadanka ka safraan iyo kuwa waliba ka maqan horta travel banki sidii la filayay in shalay oo jimcaha 22keeda uu dhaqan galo wali ma uusan ku dhawaaqin maamulka Trump lama oga xilliga uu ku dhawaaqi doono maalmaha soo socda ma noqon doona kulli iyaga ayaa laga warsugaya sidii ay sheegeen 22 ma aysan dhicin marka arinta jirta waxa ay tahay dadka doonaya inay green card ku safraan ama travel document ku qaadaan passport Soomaaliya fadlan ha safrinina arintaasna dhowr jeer hore waan u sheegay sidoo kalena dadka xitaa passportka Mareykanka wata ha isku dayina inaad Soomaaliya u safartaan arintaasi hadii aad tagto oo aad soo laabato baaritaan dheeri ah ayaa lagu marsiin doonaa in su'aalo lagu weydiiyo in telefonkaada laga qaado maxaa ka doontay su'aalo fara badan ayay noqon karaan marka Soomaaliya waad u safri kartaa hadii aad passport Mareykan leedahay laakiin soo laabashadaada maxaa kugu dhici kara arintaas xitaa qareenada qaarkood hadda waxay soo jeedinayaan wadamada red listiga ku jira oo Soomaaliya ay ku jirto dadka doonaya inay u safraan inaysan u safrin oo wadadka ay doonayaan inay la kulmaan wadan dhaxdhaxaad ay kula kulmaan oo dadkaasi ay soo baxaan kuwan inta ka baxaan oo maba Kenya kale ama Ethiopia kale ama meelahaas lagu kulmo oo Soomaaliya aan la tagin ay qareenada qaarkood ay ku talinayaan haddaba gudaha Mareykanka maalmahan maxaa ka socday waxa jira sidoo kale nin asal ahaan wadanka Hindiya ka soo jeeda oo professor ah oo magaciisa la yiraahdo Badr Khan Suri waxa uu ahaa post doctorate ayuu waxa uu ka ahaa jaamacadda Georgetown University oo ku taala DC ninkaas waa la xiray toddobaadkan waxaana lagu eedeeyay inuu xiriir la leeyahay Hamas dhinaca social media urur argagixis inuu xiriir la leeyahay propaganda oo dhinaca social media ugu sameeyay jaamacaddu arintaasi way iska fogeysay waxaana ninkaasi uu ku joogay visa shaqo isagoo wax baranayay ayaa haddana waxa uu research ama baaritaan uu ku sameynayay sida nabad looga dhalin karo wadamada Ciraaq iyo Afghanistan marka jaamacaddu waxay tiri ninkaas waxyaabaha lagu eedeeyay kuma lug lahan aqalka cad marka waxa uu awood u siiyay wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda inuu wadanka ka masaafurin karo dadka viisayaasha haysto kuwaas uu u arko in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay caqabad ay ku yihiin awooddaasi ayaa loo siiyay marka hore waxaan ogeyn wiilkii Maxamuud Qaliil inuu wali xiran yahay isagana ninkan Louisiana ayaa lagu xiray waa halkii Maxamuud Qaliil uu ku xirnaa iyadoo walina dacwadiisa hadda Maxamuud Qaliil ay socoto oo wali aan la tarxiilin ama aan la masaafurin sidoo kale saynisyahan Faransiis oo doonaya magaalada Houston inuu shir uga qayb galo ayaa markii Mareykanka uu soo galay airportka lagu qabtay telefonkiisa ayaa la baaray waxaana lagu arkay hadallo uu ku cambaareynaya Trump sidaas darteed wax leeyahay saaxiib iska laabo waba la celiyaba waa nin passport Faransiis wato oo saynisyahana oo u yimid shir inuu ka soo qayb galo wala wasaaradda arrimaha dibadda ee arintaas sababta loo celiyay in telefonkiisa hadallo uu ku cambaareynaya Trump lagu arkay darteed wasaaradda amniga gudaha waa ay beenisay arintaas sidoo kale waxa jirta gabar kale oo Canadian ah oo iyaduna aktarad ah
fiisa shaqa ay Mareykanka ku imaan jirtay way ka laaban jirtay magaceeda Jasmine Mooney ayaa la yiraahdaa marka iyadoo Mareykanka soo galayso oo fiisaheedii soo dalbatay ayaa la qabtay ciidamada ICE waa ay qabteen 12 maalmood ayaana la xiray baasaboor Canadian iyaduna wadata ninkii baasaboorka Faransiiska watayna waa tii la celiyay marka adigoo green card wato baasaboor Soomaaliya wata ama travel document wato haddii ka war intaad Soomaaliya tagto aad soo laabato maxaa kugu dhici kara gabadhan baasaboor Canadian fiisa shaqa iyadoo wadato 12 maalmood ay xabsi ku jirto waxay tiri weliba xabsi yar ayaa la geliyay oo nalka aan la daminaynin haween ayaa ku jiray aluminium ay ku duubnaayeen qabow cuntada xitaa ma aanan curi karin The Guardian ayay ku qortay qoraalkaas maxaa yeelay cuntada ma aanan aamin waa iska soomay ayay tiri marba xabsi ayaa la gudbiyay waxay sidoo kale tiri dharkii xabsiga ayaa la geliyay wafara ayaa laga qaaday interview ayaana laga qaaday waa baasaboor Canadian ay wadataa 12 maalmood xir xitaa waxa la ii diiday dadkayga inaan la xiriiro qareenkayga aan la xiriiro waxyaabaha soo idil waa la ii diiday ayay tiri iyadana xagga ii dhig ninkan kale waa nin dalxiisa Jarmal ah Lucas ayaa la yiraahdaa isagoo dhinaca Mexico ka soo laabtay oo Mareykanka markii hore intuu dhaxmaray Mexico tagay haddana soo galaya oo doonaya inuu baxo wadankiisa ku laabto isagana waa la qabtay 16 maalmood oo xabsi oo afkiiska mariyay isagana waa nin cadaan oo dalxiisa baasaboor Jarmal wato sidaas darteed hadda wadamada qaarkood sida Jarmalka waxa ay kula talinayaan muwaadiniintooda inaysan Mareykanka u safrin maxaa yeelay waxa la qofka waa la iska qabsanaya waa la iska xiraya sidaas ayaa hadda wadamada qaarkood wasaaradooda arrimaha dibadda ay update gareynayaan oo dadkooda ay kala talinayaan inay ka digtoonaadaan Mareykanka haddii ay u safrayaan arrintaasna sidoo kale waa ay jirtaa sidoo kale waxa jaamacadda Columbia University oo Maxamuud Khaliil laga qabtay hadda dalabkii aqalka cad ayay u hoggaansameen dalabka aqalka cad maxay 400 milyan ayuu aqalka cad ka xanibay wuxuu yiri haddii aadan waxyaabahaas aadan ka soo bixinina lacagtaas idima siinayno marka si ay lacagtoodii u helaan waxyaabaha hadda isbedel ay ka sameeyeen waxa kamid ah kow in jaamacadda laga mamnuuco maskaraat in la qaato waayo ardaydu markay mudaharaadka sameeyeen qaar cimaamada ayaa afka u duubnaa qaar maskaraat ayay wateen marka in jaamacadda dhanba laga mamnuucay in qofku afkiisa uu daboolo waa kow waa ogolaadeen sidoo kalena in awoodo cusub la siiyo booliska iyaguna jaamacadda joogo oo qofkii rabaan soo xiri karaan awal markii hore awooddaasi ma aysan lahayn midda saddexaad waxay tahay in ardayda sidoo kalena qaybta qaabilsan bariga dhexe iyo sidoo kalena koonfurta Asia iyo Afrika waaxda qaabilsan ee waxbarashada in qof gaar ah loo xil saaro oo arrimahaasi laga la xiriiri karo oo aqalka cad haddii uu baahdo uu kala xiriiri karo marka jaamacadda Columbia University way ogolaadeen oo niyo ku taala lacagtoodina marka in loo fasaxi doono ayay u badan tahay hadiiba dalabkii ay ogolaadeen waxaan ogeyn sabtidii la soo dhaafay inay sheegay in Mareykanku 3 diyaaradood oo u diray El Salvador oo yiri kooxda gaangiska ah ee Venezuela ka timid ee TDA Trent de Argao ayaan masaafurin marka waxaa la ogaaday dad aan dambiilan dad waxay yiraahdeen Mareykanku wasaaradda gaar ahaan aqalka cad waxay yiraahdeen dadkaasi dambiilayaal ayay ahaayeen dhamaantoodba markii baaritaan lagu sameeyay waxa la ogaaday dad xitaa aan wax dambiya galin inay ku jireen sidoo kale waxa ku jiray ciyaaryahan xulka amaba Venezuela ka soo ciyaaro football ka ciyaaro marka waxyaabaha ay ku bartilmaameeyeen waxa kamid ahaa tattoo-ga qofka haduu tattoo leeyahay waa gangis marka ninkaasi tattoo-giisa calaamadda Real Madrid ayaa ugu sameysnaa gacanta maadaama Real Madrid oo aad u taageeray footballka ayuu ciyaari jiray marka dad fara badan oo El Salvador la geeyay hadda ayaa waxa ay muuqanaysaa in aysan dambiilayaal ahayn oo hadda qareenadooda ay leeyihiin dadkaas waan rabnaa in dib loo soo celiyo marka garsoorihii Trump yiri diyaaradahaasi hala soo celiyo Trumpna uu iska dhigay maamulkiisa oo diyaaradihii halkaas laga dajiyay James Bosberg qareenka hadda waxa uu leeyahay dhowr su'aalood ayuu siiyay aqalka cad uu waa inaad iiga soo jawaabtaan su'aalahaas waxa kamid ah diyaaradahaasi waqtigee ayay Mareykanka ay ka duuleen xageysa ka tuuleen Mareykanka maqayb meesha ay ka baxeen iyo waqtiga ay duuleen ii soo sheega sidoo kale waxa uu weydiiyay waqtiga ay hawada Mareykanka ay ka baxeen su'aalaha weydiiyay kamid tahay goorma ayay ka dageen wadanka ay tageen sidoo kalena shakhsiyaadka la saaray oo la masaafuriyay halkee ayay ku xirnaayeen iyo sidoo kalena meeqa qof ayaa dadkaasi la masaafuriyay ay ahaayeen su'aalahaasi waxa la weydiiyay dowladda Trump gaar ahaan wasaaradda cadaaladda ayaa la filayay inay ka jawaab ilaa ay hadda jawaab waa ay ka bixin laayiin sidoo kale Trump xitaa sharciga qarniga 18aad ee Alien Enemy Act uu isticmaalay xitaa waxa la leeyahay inuu san saxiixin ayaa loo maleynaya oo sheekadu afka ahayd 1798 marka welina garsoorihii iyo maamulka Trump waa isku dhagan yihiin waxa uu leeyahay jawaab cad waa in la soo siiyo Trump xitaa bartiis True Social ayuu ku caayay qareenkaas wuxuu yiri waa qareen oo magacaabay Obama walow Bush oo magacaabay laakiin Obama ayaa dalacsiyay si aad ayuu xitaa wuxuu yiri waa in xilka qaadis lagu sameeyo oo impeachment lagu sameeyo marka arintaasina sidoo kale weli garsoorahaas iyo maamulka Trump dhankaas waa isaga dhagan yihiin dhinaca kale senator ka tirsan senatarada gobolka Minnesota ayaa talaadadii waxa la
arkay isagoo doonaya in uu la kulmo gabar teenager oo under age oo 17 marka booliska magaalada Minneapolis ay waxay sameeyeen xayisiin oo macnaha online ka ah oo camal galmo wax saasa marka ninkan xayisiintii ayuu ka soo jawaabay qofka la hadlayana waa sargaal boolis waxay doonayeen inay ogaadaan boolisku dadka doonaya dhalinyaro haweenka gabdhaha yar yarka inay jirkooda ka ganacsadaan marka senatarkii isaga ayaaba ka soo jawaabay oo waxa uu qoraal ayuu soo qoray xitaa qiimaha ayuu kala hadlay marka qofka la hadlayo waa sargaal boolis laakiin isagu senatarku waxa uu maleeyaa gabar inuu la hadlayo teenager oo 17 years old marka boolisku waa ay qabteen xitaa boolisku markay qabanayeen ninkan inuu senator yahay lama ogeyn waa la qabtay waa la xiray dacwado federaal ah ayaa lagu soo ogay maadaama talaadadii la xiray waa kan sawirkii markii laga qaaday xabsiga la geeyay sidoo kalena qamiistii waa uu iscasilay markii ay ugu baaqeen xubnaha Republicanka waana Republican xitaa senatorkan dimuqraadi ma ahan marka maadaama sanadku uu sinaa dhinaca Minnesota oo 33 iyo 33 uu ahaa ninkan maadaama uu iscasilay hadda 32 ay Republicanku yeelanayaan dimuqraadiyiintuna 33 marka dacwada ayaa lagu ogay maxkamad ayaaba la soo taagay maalnimadii shalay ahayd marka qareenkiisa ayaa inta badan hadlay laakiin waxa uu sheegay oo maxkamadda uu ka sheegay inuu og yahay dacwadaha lagu soo ogay marka arintaasina sidoo kale waa jirta ugu dambeyntii maamulka Trump ayaa waxa uu kala laabtay TPS ay haysteen 532,000 oo dad soo galooti ah oo ka yimid wadamada Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela dadkan maamulkii Biden ayaa waxa uu ogolaaday in laga soo bilaabo sanadkii bishii October sanadkii 2022 inay wadanka ay ku soo galaan in humanitarian parole marka qof Mareykanka u joogo ayaa sponsor gareynaya sidaas ay ku soo galeen maamulka Biden waxa uu ogolaaday 30,000 oo qof ayaa bil kasta oo afartaasi wadan ka imaanaysa ayaa soo galayay waxaana loo ogolaanayay muddo 2 sano inay wadanka ku noolaan karaan kana shaqaysan karaan qof kafaala qaaday ayayna lahaayeen marka wasaaradda amniga gudaha waraaqdan oo ay shalay soo saartay Jimcihii ayaa waxay sheegtay in 30 bisha Abriil ee afraad ee soo socota wixii ka dambeeya lagala laabtay TPS sidaas darteed muddo bil gudahooda ayaa laga yaabaa in lagu masaafuriyo 532,000 oo wadamadaasi Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela ka timid maadaama dawladdu ay sheegtay gaar ahaan wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka Trump in TPS ay kala laabteen aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo